maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa maanta u fariistay dacwadda dhalinyaro lagu soo eedeeyay furashada moobilada kuwaas oo gaaray ilaa ku dhawaad 30 dhalinyaro oo ah dadka moobilada xilliga habeenkii ka furta. maxkamadda ayaa doodeer kadib markii ay xiraalinta ay soo gudbiyeen dacwadaha la xiriira dhalinyarada lagu soo eedeeyay kiisaskan furashada moobilada ayaa waxaa gudoomiyaha maxkamadda uu ku dhawaaqay go'aankii maxkamadda ay arintan ka gaadhay. maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Boosaaso maanta taariikhdu tahay 24 bishii koowaad 2019 waxay u fariisatay dacwad ciqaabeed lid ku eedeysanayaasha maxkamadda horteeda laga yeerin doono kuwaas ku kala eedeysnaa dambiyo kala duwan oo ugu waaweyn yihiin 484 iyo 440 325 iyo 766 iyo xeer number 4 ee xeerka kufsiga Puntland. sababta siyaabaha loo kala eedeeyay si uu kala qaybsan yihiin maxkamadda horteeda ayaan ka sheegi doonaa. bismillaah. maxkamaddu markay aragtay eedda xeerlaalinta iyo inay dhan yihiin eedeysanayaasha ay lidka ku tahay eedda xeerlaalinta maxkamadda horteeda markay aragtay dooda maxkamadda horteeda xafiiska xeerlaalinta ku soo jeediyay lidna ku eedeysanayaasha maxkamadda la hor keenay markay dhageysatay jawaabaha ay jeediyeen eedeysanayaasha maxkamadda horteeda waxay maxkamadda u kala qeexday qayb walba sababta iyo siyaabaha ay dambiga u gashay iyo qodobka ay ku eedeysan tahay. waxayna maxkamaddu ka gaadhay go-aano kala duwan iyagoo loo kala saaray cid walbaba eedda ku caddaatay oo isu bedeshay faldambiyeed ciqaabeeda. khadar daahir maxamed, cabdirasaaq xasan maxamuud iyo xasan maxamed cabdirasaaq istaaga maxkamadda horteeda dhammaantood waxaa ku caddaaday qodobka 484 waxaa ku caddaaday 440 325 766 kaasoo ay dhibbanaa u geysteen ul iyo garaacad isugu jidha. maxkamaddu waxay ku xukuntay midkiiba 3 sano xariga iyo $500 ganaaxa iyo inay xabsi dibadeed lagu xukumo. cismaan maxamed cusmaan, cabdirasaaq siciid maxamed iyo salaad cusmaan yuusuf saddexdaa eedeysane maxkamadda horteeda wax kaga caddaaday 484 oo ah burcadnimo inay ka qaateen hanti, 440 farqada labaad oo dhaawac culus ah u geysteen, 325 71 dhibanaha maxkamadda horteeda waxaa ka caddaatay inuu loo celiyey hantidii laga qaatay oo ahayd moobil. maxkamaddu waxay ku xukuntay ciqaab ahaan 3 sano xariga iyo $500 ganax. maxamed maxamuud ismaaciil, maxkamaddu waxay kaga caddaaday maxkamadda horteeda 484 oo ah inuu hanti ka qaatay dhibane hantidiisna la soo celiyey. isla maxkamadda waxay ku xukuntay 3 sano xariga iyo $500 ganax. maxkamaddu waxay sii dayseen waxay kaloo maxkamaddu ku xukuntay cabdulaahi ibraahim xasan, cabdiraxmaan daahir axmed iyo ismaaciil cabdi cali saddexdaas oo lagu eedeeyey 325 71 halka la cusleynayo 71 inay caadaystayaal maxkamadda
ay ahaayeen sida taliyaha saldhig uu sheegay isla markaana la cadeeyay inay fowdada raggi sameeyeen waa kuwii arooska fowdeeyay maxkamadda horteeda qodobka ayaa kaga cadaaday waxa lagu xukumay min 1 sano iyo 6 bilood xariga iyo $200 ganaax midkiiba waxa kale maxkamadda jiray xeer number 4 ku eedeysan oo kamid yahay Cabdullaahi Cali Xasan ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Daahir ninka la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Sheekh iyo Maxamed Aweys Jeylaani iyo Saciid Cabdullaahi Sheekh maxkamadda horteeda waxa kama cadaan waxaana lagu dhameeyay waxa dib loogu celiyay saldhiga Cabdullaahi Cali Xasan waxa lagu eedeeyay qodobka xeer number 4 xeerka kufsiga Puntland kaasoo ay kala dhiban yihiin cadeymihiisa iyo dhibanayaasha qaybtood waxa biliiska iyo xafiiska xeeraanta la amray inay si ugu dhaqsiyaha badankiiska ku soo gabagayaan maxkamadana ku hor keenaan waqtiga haboon ee sharciga Cabdirashiid Faarax Cabbaas iyo Mubaarak Cabdi Khaliif iyo Maxamuud Maxamed Cumar maxkamadda horteeda waxba kaga macdaan cid aad u haysatay cid faldambiyeed ku cadeysana maxkamadda horteeda lagama helin sida darteed maxkamaddu waa siideys sidoo kale maxkamaddu waxay siideysay Muxsin Cawad Saciid kaasoo af wax faldambiyeeda ama cadeyn ama dhibane maxkamadda horteeda la keenin isla maxkamadda hortiisa waxa ka cadaatay inuu dambi la'aan yahay maxkamadduna waa siideys sidoo kale maxkamaddu waxa kamid ah eedeysanayaasha la hor keenay Mahad Cabdirasaaq Saciid iyo Axmed Cabdixakiin Dalmar iyo Cabdiwahaab Axmed Cabdullaahi kuwaasoo lagu kala eedeeyay inay siteen hub sharci darro ah kuwaasoo lagu tuhmay inay geysan lahaayeen faldambiyeedyo ama u fududeyn lahaaba inay ku geystaan faldambiyeedyo sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay midkiiba 1 sano iyo 6 bilood iyo $200 ganaax Sharmarka Cabdirashiid iyo Sakariya Cabdirasaaq waxa cadeyna maxkamadda horteeda looma keenin rondo baa soo qabatay rondadana wax daba jooga ama calaamad baariseed kama muuqan ama calaamad dambiyeed sida darteed maxkamadda xoriyadooda u celisay laba kiis ee kala galka labadan kiis ee kale ee laga keenay saldhiga Baalade kiiska xoraarinta hortiisa waxa laga hor keenay hal eedeysane uu yahay Cabdullaahi Cumar Maxamed Jibriil Saciid Jibriil waa maqane madaxweyne waa maqane madaxay Maxamed Shire waa maqane Maxamed Mire Dhaharna waa maqane sida darteed maxkamaddu waxay amartay in wili baaris ay dhiman tahay maqanayaashaasna maxkamadda jawaab looga keeno waqtiga ku haboon sharcigana maxkamadda la hor keeno sidoo kale waxa maxkamadda loo soo gudbiyay 5 eedeysane oo ay 4 kamid ah maqan yihiin hal mid kamidana uu yahay Maxamed Abshir Ahmed halka uu maqan yahay Kayse iyo Osli iyo Maxamed iyo Asad sidoo kalena eedeysanaha koowaad sheegay Saciid iyo Cabdiraxmaan dhamaantood maxkamadda horteeda waa ka maqan yihiin halka la keenay hal eedeysane oo ah Maxamed Abshir Ahmed sida darteed maxkamaddu uma dhameystirna eedeysanayaasha iyo falka dambiyeedka meesha la hor keenay waxa dhiman baarid xafiiska xeeraanta ee biliiska waxa la amray inay sida uga hadlayaan badan iyo waqti ku haboon maxkamadda ku keenaan dhibanayaasha maqan iyo jawaabta rasmiga ah dhammaan eedeysanayaasha maxkamadda horteeda lagu xukumay waxay leeyihiin qaadasho rafcan 30 cisho gudahood وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muddooyinkii u dambeeyay magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga ee Puntland shacabka ayaa waxay qaati ka taagnaayeen dhalinyarada mobilada furataha iyagoo furashada mobiladana dadka ugu dara dil laamaha ammaanka ayaa ku dhaliilay waalidiinta inaysan